barasaabka gobolka Awdal agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawel isuduwaha wasaaradda biyaha iyo cuqaal iyo waxgarad kala duwan ayaa waxa ay xariga ka soo jireen cilbiyood laga hirgeliyay deegaanka Cadaad ee degmada Xeego ee gobolka Awdal ceelkani ayaa waxa ay si waqfiya ula soo baxday Aasiya Maxamed iyadoo u waqfiday hooyo Siciida Faarax Cabdilaahi Allah Aasiya ayaa waxa ay ceelkani ugu tala gashay inay intifaacsadaan dadka ku nool deegaanka Xeego waxa halkaasi xariga si wada jir uga jiray mas'uuliyiintan ugu horeyntiina waxa faahfaahin ka bixiyay ceelbiyoodkani oo baahi badan ay u qabeen oo bulshada ku nool deegaanka Cadaad isla mar ahaantaasina uusan ka jirin ceelkani lamida oo ay bulshadu intifaacsadaan ayaa si weyn u soo dhaweeyay ceelkani ugu horeyntii ayaa waxa halkaasi ka hadlay injineerka gacanta ku hayay ceelkani Cadaad iyo waliba sidoo kale mas'uulkii ay u soo wakiilatay Aasiya oo iyadu qoday ceelkani waxana hadaladoodii kamid ahaa maanta halkaan joognaa waa Cadaad ceelkeedii loo qoday waa ceelkii 10 sano ugu dambeeyay ama 20 sano ugu dambeeyay ugu horeeyay loo qodo beeshani iyo tuuladaba laakiinse waa beel nasiib badan waxay heleen ceel biyele oo biyo dhow oo biyo macaan intaas lama wada heli karo intiiba way heleen Omar bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min qawli alxamdulillaah in ceelkan horta waxa ku tabarucday oo bixisay Aasiya Maxamed Qolaab waxayna u tabarucday oo bixisay oo sadaqa u dhigtay sadaqa jaariya hooyadeed Siciida Faarax Cabdilaahi bay u bixisay ilaahay sawaab iyo ijaab ha ka siiyo ilaahayna wax weyn sadaqa jaariya uga dhigo dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay ceelkaas ilaashadaan ceelkaasi bulshada loo qoday marka dadkaas waxa la rabaa ceelkaasi hadii ay ilaashadaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay xafidaan waxbuu iyagana u tarayaa dadkii loola baxna waxbuu tarayaa marka insha Allah taala waxaan dadka kaliya ka codsanaynaa ceelkaasi inay gacanta ku hayaan oo ilaaliyaan oo mas'uuliyad ka saaraan waxaan ilaahay u baryaynaa inuu ilaahay sawaab iyo xasanaad ka siiyo hooyadii ceelka loo bixiyay ilaahay khayr u naxariiso sawaabna Allah uga dhigo insha Allah taala marka insha Allah waxaan u mahadnaqaynaa dadkan madaxda meesha noogu yimiday jazaahumullahu khayran haday tahay gudoomiyaha gobolka haday tahay suldaanka iyo odayaasha degmadooda cidda meesha mas'uuliyiinta dhan waan iyo agaasimaha guud ee biyaha howlaha guud cidii meesha noo timiday oo soo sharaftay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanad aragtaan deegaankana waanad aragtaan wixii baahidana waad aragtaan wixii aad ka qaban kartaan inaad ka qabataan oo dadka caawisaan waanad mahadsantihiin imaashiina iyo halkaan ugu jazaakumullahu khayran ageysta kale ayaa waxa hadalkiis ka daba qaatay isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolkani Awdal barasaabka gobolka Awdal agaasimaha howlaha guud dhulka iyo guryeynta iyo waliba Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawel iyagoo dhamaantood soo dhaweeyay ceelkani ay bulshadu intifaacsan doonto ee loo magac bixiyay Cadaad kaasi oo bulshada deegaanka Cadaad ay baahi weyn u qabeen iyagoo sidoo kalena halkaasi duco iyo waliba dardaaran ay la dardaarmayeen dadka deegaankaasi hadalka iska daba qaatay ayaa waxa yiraahdeen maanta farxad bay noo tahay in halkan deegaankan loo qodo ceel hadii aan nahay wasaaradda biyaha horumarinta biyaha deegaankan aad iyo aad baan ugu wareegnay cid badan baan ula hadalay nasiib wanaag maanta ceelkii koowaad baa loo sameeyay ceel qodaalkiisuna aanu dheerayn biyo macaan leh tayada yani biyo quantity biyo ku jiraan uu wanaagsan yahay aad iyo aad baan ugu boorinayaa gabadha ceelkan waqfiday ee hooyadeedu waqfiday waana wax aad u wanaagsan ceelka waqfiga Aasiya Maxamed Qolaab ay ula baxday hooyadeed waxaan leenahay iyadoo ceelal kalena ka qoday qaybta Cadaad waxaan leeyahay hooyada kana aabaheeda u bixisay waxaan leeyahay adeer miisaanka xasanadka Allah kugu daro waxa weey iyagana Allah ku anfaco adigana adeer miisaanka xasanadka Allah kugu daro dadkuna inay ku daydaano meelaha baahi ka jiraan lagu daydaa ayaan ku boorinayaa ceelkan sida imka lagu warbixinta lagu siiyay waa ceel biyo badan waa ceel biyo macaan ninkii qoday kolku ka warramayay waxaan leenahay dadkan Allah ku anfaco waxaan ku soo gunaanadayaa oo leeyahay ceelkan biyihiisu waxay u baahan yihiin inay tagaan Cadaad wasaaradda biyaha waxaan ka codsanayaa oo isku duwaheeginayna la joogo in biyaha la jiido oo loo geeyo magaalada si iskuulka iyo magaalada iyo masaajidka iyo
ay dadku uga faa'iidaystaan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ceelka halkan laga qoday ee ummadda degaankii reer Cadaadeed insha Allah tacaala diwaan nasiib waxa xagga ilaahay buu ka baxaa gabadhii la baxday ee waalidkeedu bixisayna insha Allah ilaahay xasanaadka ugu daro muxsinada waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro ilaahay sadaqada shariir sumeena ilaahay iyagana ha gaarsiiyo oo daaqada naxariistiisa jannooyinkiisa mid kamid ah ugu furo waynu ducaynaynaa inteena nool la kalena waxaan leenahay waar ku dayda oo waalidkiin wuxuu soo dhigaa oo idinku wax sii dhigta deegaanka runtii ilaahay idin soo furiyo ceelkii leedin hel idinka waxa idinku waajib horto ilaalintiisa magaalada Cadaad meelaha biyalaantu ay ka jirto ee biyo toosa aan lahayn bay kamid ahayd haddii maanta ceelkan loo helay gabadhana waynu ugu ducaynaynaa hay'adaha kale inaga caawinayana waxaanu ka codsanaynaa inay biyo u galiyaan magaalada anigu waxay la tahay mar haddii ceel la helay Cadaadna in badan biyo loo raadinayay raadin ceel oo kale inaan la gelin waxa laga fikiro ugu horeysa ay noqoto sidii magaalada ceel loogu biyaha loogu geyn lahaa ta ugu muhiimsan waa taa mid waxa weeye gabadhu waajibkii waalidnimo gudatay oo ceelkan ugu sadaqaysay waalidkeed waajibaadka waalidku nagu leeyahay diiniya bay gudatay ilaahay hooyaday ha u naxariisto aabbahay ha u naxariisto inantaa ceelasha u qadana insha Allah ilaahay oo la qabtaa siiyo waan u ducaynayaa ma sha Allah ilaahay iyagana ha u naxariisto nin wala waalidkiisa xasuustaba khayr baa u yaala akhriya adduunkaba ma sha Allah baa iyagana Allah u naxariisto bulshada deegaanka Cadaad ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen ceelkani Cadaad kaasi oo ay sheegeen in baahi weyn ay u qabeen isla mar ahaantaasina ay uga mahad celiyeen Aasiya Maxamed oo iyadu qoday ceelka عداد هاي وفي علي ما دعيسين هاي هاي دعيسين عندي كوسات يا غدي عندي وهلكا حسناتك ولا بحري خير كان الله سي وشكري عبد الله ريال تي في بورما